kulanti wanaagsan daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan oo meel kastoo aad naga daawanaysaanba ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Somaliland Apprentice oo hadahan oo kale aad ka daawataan shaashada telefishinka barnaamijka Somaliland Apprentice oo muddooyinkii u dambeeyay socday oo ay ku turtamayeen tartamayaal kala duwan oo xirfadooda iyo aqoontooda iyo mihnada gaar ahaanada shaqo ay leeyihiin iyagoo halkaasi ku soo bandhigayay ay iyagu ku tartamayaan barnaamijkani qaybtan waa qaybtii afraad ee barnaamijka oo lagu soo xolo doono qofka ku guuleysan doono shaqada dhabta ee loo diray ee shirkadda So Company isagu ka mid noqon doona shaqaalaheeda tartankani waa tartankii ugu dambeeyay oo lagu eegi doono qof kasta iyo waxa uu ka sameeyay ama uu ka kasbado iyo awoodaha kala duwan uu ku soo bandhigo hadda waxa tartamaya 6 tartame oo iyagu isku soo haray qaybta ugu dambeysay barnaamijka Somaliland Apprentice haddaba waxaynu eegi doonaa barnaamijka qaybtiisa koobaad isagoo in guud geli doono iyagoo oo guud ahaanba 6daasi tartama mid kastaba uu ka waramayo qaybaha kala duwan ee uu soo maray muddada uu socday barnaamijka waxa uu ka dhaxlay iyo waxa uu ka bartay iyo sidoo kale shaqooyinka kala duwan ee uu qabtay ee daawasho wanaagsan barnaamijka Somaliland Apprentice بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مقعي عبد الغني محمود عبدي runtii barnaamijku waxa uu socday muddo dheer wuxuu socday waxayd waa taska amba shaqooyinka loo dirayo waxaan ahayd June 10keedii ayuu noo bilaabmay maantana waa August 9keedii waa 2 bilood iyo wax dheeraad ah shaqooyinka loo diray run ahaantii waxa ugu horeeyay interview oo sodonkii qof shaqada loo xil saaray amba soo baxay interview galeen waxaana ku soo baxay 18 qof 18 baan isku soo hadnay 18kayga hadana waxaan loo qaybiyay 3 group oo min lixlixa waxaana loo diray xayisiiskii anu waxaan kamid ahaa kooxdii groupkoodu waan ka galay 2 group baan halka ku fail garoobay waxaana ka soo baxay 3 qof oo kala laga soo qaatay labada group iyo groupkayga 9 qof isku soo baxnay hadana 9 qof baa ka soo haray 9kii qof baa hadana tasdiiq kale loo diray oo charity oo shaqooyin dhab runtii ahaa dan hawsha labaad bay noo direen intaasoo la sii socotay in dadkii la kala reebayo haddana dadaalkaaga iyo waxaad inaad muujisid ay waajib tahay iyo hawlkarkaaga iyo waxaad qaban kartid taskigii saddexaadna wuxuu ahaa taskigii ugu qiimaha badnaa in odhan karo aniga shakhsiyan oo ahaa in charity dad baahan loo ururinayaan wax loogu guray kaasoo odhan karno waxyaabo badan baa if iyo aakhira baan ka faa'iidnay oo ahaa runtii dad jilicsan oo bulshadu dayacday in wax loogu qabanayay shaqada saddexaadna loo diray waxay ahayd oo tii ugu muhiimsaneed uguna wanaagsanayd oo ahayd charity in loo soo ururiyo dadka taakulada u baahan waxaan ahayn agoomihii iyo dadkii araga ka naafadaha iyo dadkii maqalka ka naafadaha waxaan ka mid ahaa dadkii araga ka naafadahan taakulaynay alxamdulillah wax fiican nooga soo baxeen wallahi waxaan ka bartay runtii wax badan sababtoo ah waxaan oran karayaa waxa weeyaan fursatul umr barnaamijku wuxuu i baray sidoo kale dhex galo wuxuu i baray aniga macna indhaha isku haya wuxuu iga dhigay qof indhaha kala furtay waxa sidoo kale aan bartay shaqo dhaba sida loo qabto sida maskaxda loo maalo sida anigu kaligiis ugu talageli karo runtii wax aad iyo aad u badan baan ka bartay barnaamijkan anigu barxad ahaan wax badan baan barnaamijka ka dhaxlay wax badan baan ka bartay aqoon ahaan iyo wax walba runtii qaybo badan baan ka bartay waxa ugu mudan horta ka bartay sidii qof aad fikirkaaga ugu qancin lahayd iyo aragtidaada saad ugu qancin lahayd saad ugu soo bandhigi lahayd qof fikir eed waliba uga dhaadhicin lahayd ugu qancin lahayd horta runtii wax badan difference ayaa noo dhaxeeya maalintan meesha soo galay iyo maanta soo galay hadii shaqooyinka la ii diray maanta oo kale saliis oo kale la ii diri lahay waxaan aaminsanahay in xabadna aanan iibiyeen baan aaminsanahay khibrad badan ayaa iiga korodhay oo shaqooyinkii loo diray noo sahleen inaan barano sida dadka loo dhex galo sida qofka wax looga dhaadhiciyo iyo sida naftaada u iibin karto intaba marka waxyaalo fara badan ayaan ka bartay oo maanta waxa isku haystaa inaan bulshada noqon karo dadka dhex gali karo حتى تنك كقول درستو وحتى رجديدو إن الملك كله أو حكى بارن كرا أو سوى حلوه هي الهابن برتك. هذا جوه الريان يعني ما أنتي كوادين هالكني مثني هدي قف
interview ku weydiiyo ama kamarad lagu soo hordhigo kale yani phobia ka qabnay ama qofku uu naxsanayo kale alxamdulillah barnaamijkan waxaan ka faa'iidno kale in self confidence qofka yani inuu isku kalsoonaato oo awoodda kugu jirta aad qof kale u bandhigi karto ama aad naftaada iibin karto waxyaabaha ugu muhiimsan bay ka mid tahay barnaamijkan intii socdaan ka faa'iidno naftada san u muujin lahaa waxyaaba aan hore isku aqoonin oo bartay inaan hawl walba la dareenan ka adagahay aan qaban karo runtii wax badan baan ka bartay oo shaqadan amba taskan qabanay waxa ka mid ahayd hal abuurnimada oo qof kasta hal abuurnimo la iman karo fikirkiisa oo sameyn karo waxyaabo badan oo ka duwan gruubyada kale kalabaad ka bartay sabir inaad yeelato runta wanaagsan oo shay u sabirto shaqada qabanayso waxa ka mid ahayd passionate noqoto waxaan jeclaato aad qabanayso inaad self confidence yeelato runta wanaagsan kalsooni aad ka qabto iyada hata qof motivated ah oo runta wanaagsan naftiisa dhiirigelinaya oo nas iibin karaya way jirtay mid ah farsamada gacanta oo ahayd paintingka walliga waliba decorationka qurxinta taga soo xigto ahayd IT inaan information technology ka shaqeyn karo waliba aan ahaa designka dhanka photoshopka taga soo xigto ahayd ku soo shaqeeyay volunteer Islamic Law University oo iyada dhanka HR-ka consultant ka ahaa may hore uma soo shaqeyn meelo badan oo aan ka soo shaqeeyay oo runtii aan qaar xirfadayda ahay qaar aan xirfadayda ahay meelo badan oo iyagana internship ugu shaqeeyay jiraan laakiin shaqadii aan oran karo shaqadaas aad wax badan ka qabtay waxay ahayd fiilka aniga iyo gaarka oo ah human resource management aan ku soo shaqeeyay muddo 6 bilood aan kaga shaqeeyay organization kamid organizationada mar waxaan ku shaqeeyay macalinimo marna waxaan ku shaqeeyay wixii aan bartay oo ahaa accounting oo aan ku joogay hay'adda NGO-ga hay'addan joogi jiray oo aan sameyn jiray waxaan ahaa financial assistant baan ahaa waxaan ka soo shaqeeyay shirkadda Shulac Caterpillars oo runtii ahayd shirkad cagafaanta dhulka xaadha iyo maxaan ku raadayay runtii wadooyinka baneeya oo ka ahaa general accountant markii dambena waxa laga soo wareegay Shulac supermarket oo runtii isagana ka ahaa sales dhowr meelood baan ka soo shaqeeyay laakiin haddana shaqooyinka la diray ee shaqada ninka ay direen dhinac walba oo qofka walaga eegaya kol markii hore waxaan ugu wadaadeen fikrad keena markii labaad waxaan ugu wadaadeen charity soo ururiya markii saddexaad sales bay noo dhiibeen la iibinayo shaqooyinka hore aan soo qabtay dee wax gaara lagu dhiibay lagu oranayaa qabo lagu soo caymay processkayga lagu siiyay laakiin tan waxay kaga duwan tahay shaqooyinka kale adaa abuuraya qaabka waxaan u sameeyay dawadayaal waxaan soo gaarnay qaybta barnaamijka Somaliland Apprentice qaybtan oo tartamayaasha barnaamijka ee kala duwan ay ku tartamayaan inay iibiyaan agabka kala duwan ee shirkadda soo company ee dhinaca internetka ay bixiso iyadoo qaybtani loo sameeyay dhammaan guud ahaanba tartamayaasha barnaamijka goobo kala duwan oo ay ku iibiyaan iibkaasi isagoo kaga duwan yahay iibka ay sameynayaan tartamayaashani barnaamijkani in goobahaasi discount wanaagsan shirkadda soo company ay u sameysay iyagoo qalabka kala duwan ee MFI-yada iyo home routerska iyo guud ahaan internet recharge-ka iyagoo halkaasi ku iibiyay qof kastana waxaa lagu eegayay iibinta amaba khibradda uu leeyahay inuu qof kale wax ka iibiyo amaba dhinaca saleska haddaba aynu eegno goobaha ay ku kala qornaayeen oo kala ahaa hoteelka Imperial hoteelka Ambassador iyo sidoo kale aadan 19 ee xaafadda boqol kotonka qof kasta iyo sidii uu u iibiyay barnaamijka Somaliland Apprentice لا السلام عليكم صباح ونكسن جروب كي امباسطور ما انت شقada waxaan bilownay 7 subaxnimo ilaa hadda si fiican bay wax noogu socdaan iibkaygi ma sha Allah dad badan baa maanta noo yimiday dad badan baan ku qancinay shirkadda soo company speed fiican sameeyso oo dad badan oo kale oo shirkadaha kale ugu jiraan baan ku qancinay iyagana inay soo gashadaan sidoo kale home routerada iyo wifi-yadii gacanta sales badan baan maanta sameynay alxamdulillah dad badan oo inaga iibsadeen dad badan oo la balansanay ilaa geelka dambe noo soconaysa ma sha Allah wax fiican oo rajaynayna insha Allah bal asbaa ku soo dhaweynaya iyadana balinay
بسم الله waxaan nahay qoladii lagu soo qoray ambassador hotel horta hawsha ma sha Allah saaka si fiican bay nagu socotaa horta saaka si fiican bay nagu socotaa ilaa hadda waxaan iibinay 10 xabo بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Amaal Xuseen Cismaan waxaan ka mid ahay qoladan Abrantiska waxaan isad ogtiinba waxaan isugu saarnay imika waa final stage waxaan isugu saarnay 6 qofood 6deedii qofood waxaan loo diray shaqo dhab ah oo sale ah inaan iibino internetka maanta waniga waxaan joogaa goobteedii oo Imperialka lagu talagalay maanta sabti aan ka hawlgalayaa waxaan iibinayaa waa laba nooc oo maxay ahayd MiFi ka gacanta lagu qaato oo la siinayo 25 device ka 25 lagu shubayo $50 iyo home router oo isaguna soddon device kala siinayo 25 lagu shubayo haddaan dareenkayga ka hadla ku aadan tartankan aad baan horta waan ku faraxsanahay tartankan ilaa xad baan ku faraxsanahay inaan heerkan soo gaadho waxaan rajaynayaa insha Allah inaan ku guuleysan doono inkastoo jiraan dad firfircoon haddana boqolkiiba 90 waxaan u badinayaa anigu inaan guuleysan doono wad mahadsantihiin Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle بعد الحمد لله ساكا waxaan ka soo kicitinay guriyahayagii waxaan noo soo kicitinay sidii aanu xarumahayagii noo diyaariyay ee shirkadda soo company loogu tala gashay inaan wax ku iibinay qaybta saleska ay noogu tala gashay si aanu uga hawl galo awalan waxaan ku soo horeynay xarunta headquarter-kan ku soo horeynay si aanu alaabadii iyo wixii naloogu tala galay haday qalab noqoto iyo haday buugaag noqoto waa si aanu uga soo qaadano ayaanu xarunta nimidnay alxamdulillah waxayna soo siiyeen qalabkii ay noogu tala galeen inaanu meesha ku iibino waxaanu ka soo qaadanay xarunta waxaanu noo soo kicitinay goobihii ay noogu tala galeen inaanu ku iibino waxaanu geed dheer iyo geed gaaban baan furaynaa si aanu u kasban lahayn bulshada qaybaheega kala duwan saanu u kasban lahayn uguna qancin lahayn sidee wax nooga iibsan lahayn internetka صح صح لبعض العشاء بيشت كل شوي marka dambe aan ka tago maxaa sameeyaan family routine isticmaali karo القفة دي بتجي استبعد شني لبعض نجيب حنا سوى لوجي ديني ما اسبار جروبي وحرمايو ماكس اوكي صح ما كان قاعدين ان شاء الله سبيركيس هاو نكسين وحوي 3 ام بي مالنتي بالكوسو دنيا 3 ام بي حتى شني سبيركيس إنه نافع كمان باي 3 ام بي وا بلش يرسين 3 ام بي هرتا حافظ ما برضه ما ينكرتون 3 ها ودا تبدو وين waxaan hadda ku soconay oo soo gudubnay marxaladan kale oo ah saleska taasi oo saddexdan teen loo kala qaybiyay saddexdeeda group anagoo 6 qof isku soo harnay marxaladan 6 qof waxaan isku soo gudubnay marxaladan 6 qof min laba loo kala qaybiyay laba meel bay ku qoran yihiin san horeba ku soo sheegay asana anagu maanta ugu qoranahay hotelka Imperial Audio Jungle بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Cabdiqani Maxamed Cabdi sal dhamaantiin bad la socoteenta waxaan isku soo harnay 6 qof 6 qof waxaan loo diray shaqo dhab ah oo ah sales inaanu iibino internet deviceska oo kala ah home routerka iyo MiFi-ga aniga waxay ku soo hagtay xaruntan aada 19 ee ku taala 150ka runtii home routerka waxa la siinayaa isaga marka lagu shubanayo waa 25 device kuna waa 30 waa isku 50
marka la eego MiFi-ga oo portable-kii la qaadanayay isaga waxaa la siinayaa konton oo 25 ah ku shubashadii iyo 25 ah device-kii run ahaantii horta shaqadan loo diray waa shaqadii dhabta ahayd dareenkayga waxaan ka filanayaa inaan guulaysan doono isgaarsiinteena soo gayga Somaliland guulay u horseeday badan waxaanay ku guda jirtaa dadaalan kala go'ayn isgaarsiinteena soo gayga Somaliland guulay u horseeday badan waxaanay ku guda jirtaa dadaalan kala go'ayn soo gaadha oo soo gashada isgaarsiinteena 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 soo haddaba dabadeelintaasi markay kaga nimaadno shaqadaasi dhabta ah iibka iyo goobahaasi ay ku iibinayeen daayarta ku tartamaysa barnaamijka Somaliland Apprentice mas'uuliyiinta ama xeer beegtida barnaamijkaasi hadda waxay gaadheen in guud ahaan qof kasta marka uu soo sameeyay iibkaasi isaga si gaar ah loo interview gareeyo kaasi oo laga qaadayo khibradda shaqo uu leeyahay iyo guud ahaanba shaqada isaga loo diray waxa uu ka soo qabtay iyadoo aqoontiisa nafsi ahaana ay eegayaan su'aalaha daba halkaasi ay ku weydiiyeen mas'uuliyiinta xeer beegtida barnaamijku sidan ayuu u dhacay ee daawasho wanaagsan. Assalamu alaykum. Soo dhawaad caawa final stage interview weeyaan su'aalo kagama weydiina insha Allah koodna jawaab doonta waxaan u bilaabaysaa walaashin Yasmin. Okay. Sayyidu Allah. balaadiga si sharaxaya saddex kalmadood balaadiga isku soo koob bismillah abda saddex kalmadood soo koobo waxaan ahay qof jecel inuu goal oriented ama hadafka markasta waxaan ahay qof self confidence leh oo isku kalsoon nafahan isku kalsoon waxaan sidoo kale ahay qof jecel inuu dadka motivate gareeyo ama motivation su'aasha labaad waxa weeyaan bal maxaa adiga ku shaqaalaysiinaa inta soo dada maxaa adiga aan kala soo dhaxay bismillah wasal fiican inta soo dada waxaan leeyahay aqoon ama karti aan ku sameeyo bridge dadka bulshada iyo company-ga u dhaxeeya bridge kaas oo ah mid saaxiibtinimo ama walaaltinimo oo dadka ka dhaadhiciyo inuu company-gu yahay company-ga ugu wanaagsan marka waxay idinka caawin doonaa insha Allah tacaala maadaama aan bartay sida dadka loo raalgeliyo ama loo motivate gareeyo inaan bridge-ka aan sameeyo bridge saaxiibtinimo ku samaysan. Okay, well, haddii aad ku guulaysato haddii aad ku guulaysato maxaad ku soo kordhin lahayd shirkadeeda wadsada bismillah haddii baan ku guulaysto insha Allah tacaala waxaan isleeyahay waxaad ku soo kordhin doontaa maadaama oo aan externalkeeda kaga imiday oo aan ogahay waxyaabo badan oo suuqa yaala waxaan idinku soo kordhin doonaa information cusub iyo sidoo kale maskax cusub oo company-ga hore u dhaqaajista. Said ka tartamayaasha aad iska reebtid waa kuma qofka ka baqanaysid inay kaaga guulaystaan shaqadan iyo sababta ugu baqanaysid bismillah horta waa dad runtii karti leh oo aqoon leh oo intaas oo stage ka soo gudbay marka dhammaantood batraad bay igu yihiin marka dhammaantood waxaan isleeyahay waa dad runtii ku challenge gareyn kara oo booskana u qalmo looga baqi karo qofka laakiin aad filaysid oo waad leedahay qofkaas aad qof ahaan ma kala dhacan qof ma tilmaami karo
qof laakiin runtii groupkan ilaa group 1 waa soo wada shaqeynay marka waa dad runtii aqoontooda iyo kartidooda laakiin qof ahaan haddaan idhaahdo amal baan idhaahdaa sababtuna waa qof runtii marka fikirka dhimanayso qof aad u degan oo runtii la odhan karo way ka fiirsataa wax walba sharaxaya oo 3 kalmadood ku soo koob bismillaah anu waxaan ahay dans ka hadlo nafahantayda horta qof karti leh dadaalna geliya kartida dadaal geliya runtiina time na geliya jecel waxa uu kartida geliya inuu ka soo dhalaalo guushana jecel lixda ku soo hadhay nimanka bal lixda qof sababta aan adiga aan kala soo bixi lahayn waa maxay just waxa ku cadaynaysa oo kaliya ta xana qofka kaliya one day ku iibiyay within 24 hours ku iibiyay waliba in ka yar 7 galay la lixdii ku iibiyay 17 devices and 3 recharge sameeyay ayaan hay qof kale oo sameeyay ma jiro taas ba ku muujinaysa inaan hardware ka lahayn okay ana wala hadii ka soo qaadna ku guuleysatay qofkii soo baxay aan batay maxaa shirkada soo binay horta wadi tijaabiseen waana idin muuqataa in badanna waan eri hardware karo maalinta horena saasuun baan eri interviewga hore inaan hay qof hardware kara firfircoonina gelin kara laakiin halka aan ka fahmay in markaan saleska galay ayaa ahayd in jiro caqabad inaga haysata xagga dadweynaha inay u gudubto waxeeni oo qaabkeedu waxay sidoo kale iska yahay qaab Koreana marka wuxuu baan anu ku soo kordhinaa inaan nidhaahno war qaab dadkeenu u fahmayaan aynu u galina productkeena oo dadkeenu ha fahmaan wixii wali waxa ka jirta faham daro oo English halka ku qoran laga yaabay uu u baahan yahay inuu waxaan isticmaalo laakiin Englishkuna waa akhriba kare marka qaabka inuu suuqa u ganana marketingkeena aan wax ka bedelno as waxaan la iman lahaa aan soo lahaa xaqa focus kala tar mar walba customer kan jeclaa sidii customer badan loo heli lahaa antaas way aan u leeyahay aynu bal aaladii nagu fahmi karaan oo ku fahamsiina si suuqeenu qabso amalay adoo tartameesha guusha tartanka adoo iska reebtay waa kuma qofkaad ka baqanaysid inay ka guuleystaan shaqadan ee sababta ugu baqanaysid wallahi sheeg qof aan idin sheegaya ma jiro aniga is siiyay wana ku adkaysanay nobody ana ogolahay ma jiro hadii soo baxday aan fail garoobay soo ka wanaag balaya laakiin hadda qof aan leeyahay uu ka firfircoon yahay ma jiro waxaan ku eeday meesha shaqada marka adoo iska reebtay meesha inta hadii yaad filaysaa waa leeyahay qofkaas oo qalma wax ku fiicnayd inaan u xusho qofka marka la xulanayo meel badan loo eego oo sababteeda daba taalaad ku xulatay marka hal wuxuu baan qof ku xulan lahaa waxaan oran lahaa barxad waxaan ku xulan lahaa qof degan deganaanshahaasina managerka way u fiican tahay soo decision khaldan u qaadan marka waa qof furta degan dabeecad wanaagsan la dadka la dhaqmi kara marka isaga ayaan oran lahaa dad ugu khasabteen dhama lahayn yoolka بسم الله والصلاة والسلام على النبي بعده مقعي بو برخد يوسف علمي runtii waxaan ahay qof jecel inuu shaqeeyo group work team workina oo markaa group ahaan dadka la shaqeyn kara oo leadership runtii shaqadiisana u daacada وإنت سقف على صعب المنطقة قف وجوتان سببت على عدد أشغال مسلمة بسم الله runtii sababta aniga shaqada ay siin haydeen horta waxaan maanta heer aanu dadaalkaygu gaarsiisnay iyo kartideedii iyo awooddeeda aqooneed runtii marnaba dooni maayo inaan hantiyo dooni maayo waxay aqoontaydu tahay
kartidaydu tahay talentkeedu yahay iyo waxqabadkayga hore soo eegteen badanaa tastiyo badan baan soo galnay sidii aan groupka uga firfircoonaa firfircoonidii iyo waxqabadkayga hore in lagu qiimeeyo ayaan runtii odhan lahaa saasaa lagu xulan kari lahaa baan odhan lahaa runtii waxaan ku soo kordhin lahaa runtii dadaalkayga iyo kartidayda horta dhinacnaba ka hagran maayo waxaan ku soo kordhin lahaa oy aqoontayduna tahay dhinaca xisaabaadka oo kale iyo shirkadda horta wixii ka sii jiray baan wax ku soo biirin lahaa meel walba runtii aan markaas aan ka arko wax inay ka bedelan yihiin ama aqoon ahaan ha ahaato ama wax kale ha ahaato runtii waxbaan ka qaban lahaa waxbaan ku soo kordhin lahaa waxna waan ka bedeli lahaa intay dadaalkayga iyo aqoontayda iyo kartidayda igu gaadhsiiso waa kuma qofkaad aada ugu baqanaysad inay kaa guulaystaan shaqadan ee sababta ugu baqanaysad runtii waa su-aal yarka kan wallaahi horta cid aan maanta uga boqonaysa dhahdo niyow tartankaas way kaaga guulaysan aduu kalsooni buuxdan qaba ismalihii waa lagaa guulaysan laakiin rajaa meesha taala waxaan u rajayn lahaa waan odhan lahaa waa qof isna firfircoon walaalkiisii waa nin firfircoon waa nin runtii dadaalkaygana leh idinkaa mudan walaa السلام عليكم أسماء في عندي والله الحمد لله يمكن إحنا نشوفنا فاميلي انترفيو ستيج كي مركادو سألوكم كوها نام جميل إن شاء الله تقول بس وحويا أبيكم الشرحية صدق كلمة تسكو سوكور بسم الله horta waxaan qof karti badan hawl kara fahmo dhow maxaan adigu shaqada ku siinaa sababna waxaad idin siinaysaa insha Allah waxay noqon doontaa cause waxaan soo maray marxalado kala duwan dadkale wad aragteen wax qabadkayga kartidayda marka waan u qalma xilka malaha haddaad walaad ku guulaysatid shaqadan maxaad ku soo kordhin lahayd shirkadda dadkale shirkaddu waa shirkad internet كل قيب تاسو من قبل لها يو فكرة ده هيجي وده هيكون سهل لها. أسمعي نقطة تمام شكل إيه يعني وكم قف قد فلي سد أو أتخبى غني سد إنك هاد بوليستان يصوت هذا بغني سد. أما سوكو بوليستان دوا هدو يجي كرتي بدأ هاي ما يبيده. ها؟ أنت حدي قف كيرات سلالة قف كاسبا ملها أنت كلام. أنت كلا دعما حياة صوت أنا كوز سكول ليفل برنامج حياة somehow يسوي دودة هيدا لأنه قف دك فكر كيس هدي قف كلا جاي قدي حياة ونسكير فكر دونها أبي قصدي حتى الموضوع استعماله طلعت شخصيا بس الشرح runaantii shakhsiyadda waxaan isku sharaxi karo waxa weeyaan waxaan ahay qof passionate ah wuxuu qabanaya makasta jecel xiiseeya waxaan kaloo open minded oo qof u furfuran oo maskaxdiisa marka soo jeedo waxuu qabanayana sideedu qabanaya ta saddexaad waxaan waa honestly daacad waan wax kasoo daacad ka ahay okay su'aasha labaad waxa weeyaan lix qofood ku soo cadeen markaa lixdaa qof sababta aan adiga kaaga soo dhexbixino waa maxay sababta kaaga soo baxsa waxa weeyaan
and how to make a decision inaan qof go-aan samayn kara ahay qof real leh oo visionary ah communication-kaygu waa good all that things okay cabdiqani walaal haddii aad ku soo baxdid oo noqotid qof ku guulaystay maxaa shirkadda kusoo kordhin shirkadda soo maxaad kusoo kordhin lahayd waxaan kusoo kordhin lahaa marketka dhankaan uu ku wanaagsanahay talent ku hay waa marketing sidii saleska loogu diray marketka u sameeyey ayaan shirkaddan marketkaygu u ballaarin lahaa oo productkay soo saaraan isku dayeelaan gobolada somaliland sidaan u gaadhsiin lahaa ba marketka u gelin lahaa baan shirkadda kusoo kordhin lahaa dhinacaas cabdiqani markaad tartamayaashan ku jira tartankan adigu aad iska reebtid waa kuma qofkaad ka baqanaysid inay kaa guulaystaan shaqadan iyo sababtood ka baqanaysid su-aasha su-aal adag ana ciddan ugu baqanay waa naftayda aan kugu celiyo marka adigu iska saartid iska reebtid inta kala soo hadhay qofkii waad ka baqanaysaa inay kaa guulaystaan lamada la qalba shanta qof runta wanaagsan ee final bars ugu imanay qof kastaaba shaqo wanaagsan oo soo qabtay oo finalkan ku soo gaadhnay su-aasha inaan ka jawaabo igu adag laakiin ciddaan is leeyahay aan u rajaynayo waa xayaat sababta runta wanaagsan waa qof furfuran caawimaad uga baahato ku caawinaysa qof ku fahmaya isku jahan noqon kartaan same direction هاي أنا بس الشرح يا صدق كملوا بس ما نفسي ده ساعدني مسؤول قفر فرن سؤال وحويا فسوت على عدد كوش على سينا من انتهى صوت المعاوزة بحنا واضحين sababta aan uga duwanahay dadka kale waxay tahay horta taaskan loo diray gedigan sibaan wada qabanay way taaskan isku wada mid buu ahaa laakiin anigu waxaan geliyay maskaxdayda si gaar ah waxaan geliyay energy aad iyo aad u badan waxaan geliyay wax kasta oo hayay oo ability-gayga ahaa waan geliyay marka taas baan malaynaya inaad aniga iga fadali kartaan horta sida horeba u aragteen waxaan ahay qof cilmiga horumarinta barta marka mar kasta oon isku dayayna wax soo kordhiyo waxaan kordhin lahaa shirkadda wixii xirfadayda ah ee garanaya ah horumarinta marka hadba sida suuqa usii gelin lahaa usii horumarin lahaa ama kusoo kordhin lahaa adigoo tartamayaasha kula jira tartankan eegaya waa kuma qofkaad ka baqanaysid inay kaa guulaystaan shaqadan iyo sababta uga baqanaysid horta runtii qofkan uga baqaya kursigan wuxuu yahay cabdiqani walaalkii cabdiqani sababtoo ah waa qof runtii ilaahay maskax siiyey firfircoon aad iyo aadna shaqadiisa aan uga helay sida u shaqaynayo isagaan uga baqaya kursiga horta qalinkan waa qalin fiican aad u fiican wuxuu ku fiican yahay inaan idin sheegay waxa weeyaan khadka qalimaadka kolka la bilaabo uu khafiifaa inta horena uu si fiican buu qoraa marka qalinka dad la eegto waa qalin aad u wanaagsan in badan buu haynayaa khadkiisu ma dhamaanayo mana istaagi doono insha Allah marka waa $1 laba kun baad haysataa waa $1 qalin ما عندي حنسوي منه إلا أنت تكرس هذا ولا بكرة أو حبيت كلامي ما يشوف بقول كلامي بس أوكي أنا هو طريقتك لا waxaan idin hayaa qalin oo qoraalkiisu fiican yahay
waxaad ku faa'iidaysaa runtii qalimaantii ka istaagay maaha waa qalin aad qoraal kasta oo ku fududeynaya runtii warqadana si fiican uga muuqanaya marka qalinkan baan idin hayaa waan idinku soo dhaweynayaa gacmo furan inaad si fiican iga iibsataan oo idin anfacaya marka waan idin soo dhaweynayaa gacmo furan iyo qalbi furan waxaan rajeynayaa inaad si fiican iga iibsan doontaan oo qalinkanna oo idin qancin doono qiimihiisa waxaa idinka siinayaa qiimo uu jaban yahay insha allah waan idinla saariyaa wax fiican waan idinka siinayaa qiimihiisuna waxa weeyaan qiimo jaban oo 1500 soo dhawow waxaan ku hayaa waa qalinkan waxaa la yidhahdaa shirkadda samaysa siska la yidhahdaa waa qalin ka duwan qalimaanta kale sababtu kaga duwan yahayna waxay tahay wuxuu leeyahay qalinkani waxyaabo badan oo aan qalimaanta kale lahayn sida saasoo kale markaan u isticmaalo waxaan ku qori karayaa wax kastoon u baahanahay taasi waxay ka dhigaysaa inuu qalinkan yahay qalinka ugu fiican qalimaanta haddii aan kula talinayn waxaan ku odhan lahaa qalinkan qaado qiimihiisa waa qiimo ku cajabin kara ma aha qiimo aad iyo aad u sarreeya waxa weeyaan ku shilan wax iga dhin maadaama tahay customerkaygii noqon doontana qof ila soo xiriiri doona si aad iigu soo xaysiiso 900 shilin magaasina walaal yaasmiin qalinkani horta waa qalimaanta noocyada ugu wanaagsan waxaana ku cadaynaysaa eg waxaad isleedahay meel aad surato kama halu halaabayo tada kale maaha ku furkiisi kaalumayo khadkii ku marmarayo markaad doonayso inaad isticmaasho haddana marka dambana waad xidhanaysaa qalin khadkii kuma marayo faa'iidada uu leeyahay uuna qurux badan yahay oo uu soo jiidanaya waa noocyada dadka ku xarooqdaan oo aad dadka soo jiidanaya qurux badan yahay marka faa'iidadiisu uu ka badan yahay kuwan kale aad haysataan yarar ka qurux badan yahay ka soo jiidasho badan yahay ka isticmaal fiican yahay qalinka waa ku shilin oo kaliya taa wuna jaban yahay jii ku shilin wuxuu ku haynayaa ugu yaraan 2 bilood bal u qaybi ku shilin intee kugu soo hagaagaysaa xataa maalintii ma isticmaali kartid inta kugu soo hagaagaysa koob shax hagaajisan walaal halkan qalimaan baan ku hayaa qalinkan aan ku hayaa aad buu ku anfacaya runtii waa qalin aad arkayso waa qalin dib u noqonaya marna hore soo baxaya runtii fur aad ka furtay waxaas oo hawlaya ma laha waa qalin tayadiisuna wanaagsan tahay runtii aad ku anfacay qoraalkana ku wanaagsan wada qiimihiisu waxa weeyaan waa 3,000 shilin 1,000 shilin baad sidataa walaal waxaad ku soo biirisaa 2,000 shilin ku soo biiri qiimo aadama runtii waa qiimo jaban weeye waa waxay noo dhaxayaan waa 2,000 shilin 2,000 shilin ku biiri oo caadi wala ها صدق ما سوي ها وحبان كده يعني ده كليته ده خرطة وح هذا كمان صارم وحيقول سعر صدق كمان آخر كاسينيا صو isgaarsiinteena soo gayga Somaliland guulay u horseeday badan waxaanay ku guda jirtaa dadaalan kala go'ayn isgaarsiinteena soo gayga Somaliland guulay u horseeday badan waxaanay ku guda jirtaa dadaalan kala go'ayn soo gaadha oo soo gashada isgaarsiinteena soo gaadha oo soo gashada isgaarsiinteena soo gaadha oo soo gashada isgaarsiinteena soo gaadha oo soo gashada
isgaarsiinteena soo isgaarsiinteena soo waa tahay daawadayaal intaasi markayn kaga nimaadno qaybtaasi waxaynu guda geli doonaa barnaamijka Somaliland Apprentice ama tartan shaqo qaybteedii ugu muhiimsanaa oo hadda aynu gudbi doono gudoomiyaha barnaamijka isagu kala xula soona saari doona maadaama ay qaybtani tahay qaybtii ugu dambeysay shaqaalaha ay qaadan doonaan shirkadda So Company ee ku guuleystay barnaamijka Somaliland Apprentice sidoo kale waxa aan barnaamijka ka maqnayn martida barnaamijka maadaama uu barnaamijku ku ugu dambeeyay uu yahay waxa kamid ah mas'uuliyiin tiro badan oo barnaamijka ka soo qayb gashay oo barnaamijka iyagu halkaasi weero ka gudbin doona maxamed Elig oo Hog Cable TV ka socda iyo Guuleed Hotel mas'uulka ugu sareeyo oo isagu barnaamijkan qaybka hadaba yuu noqon doona guuleystaha barnaamijka yaa ku guuleysan doona lixdooda yaa heli doona shaqada ay shirkadda So Company ay bixinayso hadaba Suldaan iyo cidda uu siiyo shaqadaasi ee ku guuleysata mutaysatana barnaamijka Somaliland Apprentice inuu noqdo guuleystaheeda daawasho wanaagsan bismillaahir rahmaanir rahiim martida sharafta leh VIP guests really Umar Hassan Ali Umar Hassan Guuleed iyo Maxamed Elig oo ka socda Home Cable TV daadiyaashii barnaamijka ee shirkadda Home Cable shaqaaleeda ahaa Maxamed Ibrahim Yasmiin Mukhtaar Fuad iyo dhammaan intii hawshan wax ka qabatay horta marka horeysa waxaan salaanta islaamka ku salaamaya assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh sala socotaan munaasabaddan maanta aynu isugu nimi waxayd munaasabad muddo 2 bilood hadda soo socotay Somaliland Apprentice waxaanu ka wada warqabnaa in assignment-kaas uu ku soo bilaabmay 30 qof oo tartamayaal marxalado kala duwan baynu soo maray marxaladii ugu dambeysay tan ka horeysay waxa ahayd tii charity-ga oo ay si fiican tiimamkii hawsha loo diray u gubteen outcome-kii ka soo baxayna wuxuu noqday 6 maanta inoo hor fadhiya ee candidate ayaa u soo gudbay finalkan maanta fadhino hawshii ay qabteen waqtigii charity ururinta agoomaha indhoolayaasha iyo haddii baan is leeyahay dhagoolayaasha waxay qabteen runtii shaqo aad u ballaaran deeq badan bay soo ururiyeen ilaah baa mahadda iska leh iyagana ajar iyo xasanad ilaahay ka siiyo lacag fara badan bay u soo ururiyeen oo magaranaysaa u gudbiyeen dadka baahidu qabtay last assignment-kii loo diray oo mainly ahaa marketing 6 tartamayaal ayaa ka howlgalay waxaa markhaati madoon ah oo cad in ay shaqo wanaagsan dhammaantood fuliyeen isaga la socotaan barnaamijkan Somaliland Apprentices waa kii ugu horeeyay noociisana ee Somaliland laga qabto annagu qolyaha iyagii hawsha u xil saaraa waxaanu isu daynay inaanu si xalaala oo aan mugdi ku jirin idin tartansiino nin abwaana laga sheegay ilaahow eex ma tiraabine aqoon haygu cadaabi bilaadanku waa la gafayo insaan baana laakiin to the maximum annagu waxaanu ku talagalnay in aan la naxaman sida wixii ilaahay nagu ogyahay tartanka ma garanaysaa inta aqoontayada ah inaanaan ixtiraabin si daacada idin tartansiino tartanka of course haddii tartan yimaado dee waa la kala badiyaa waa nature-ka tartanka sida ula socoteen waxaa ka soo hadheen 30 qof oo lagu bilaabay hawsha waxaan si farxad leh maanta idinku soo gudbinayaa 6diinii tartamayaal assignment-kii ugu dambeeyaad gasheen final yani waxaa ka soo baxay outcome-kii ka soo baxay wuxuu noqday marka ugu horeysa winnerkii sanadka 2016 Somaliland Apprentices wuxuu noqday ninka la yiraahdo اللهم صل على محمد عبد الغني محمد آدم
cabdiqani maxamed aadan waxaan magaranaysaay congratulation baan leenahay wuxuu noqday inankii ruuxii lixdiinii tartamayaal ee ugu dambeeyey hawshii yani kaalintii koobaad galay marka winarkii sanadku waa isaga waxaan cafwan ilaabay hawshani mid waa tii ugu horeysay tii ugu dambeysay noqon mayso waa tii ugu horeysay tii ugu dambeysay noqon mayso waxaan ku dalan jiraa inaan sanad walba qaban kanoo kale insha allah wixii gaadha waynu ka wada shaqayn doonaa markaasoo waxay garatay maadaama cabdiqani uu yahay ruuxii koowaad ee ku guulaystay kaalinta koowaad inuu isagu winarkii yahay waxyaalo dhinacyo badan markii laga eegay hawlihii aad soo qabateen duruufaha jira somalilan waxaa lagu daray gabadhii iyana tartanka lixdiinii qof cabdiqani ku xigtay oo iyana ay shaqo ay ofargaraynayso iyana waxay noqotay amaal xuseen cusmaan waxaan leeyahay waa feer ragga iyo dumarku gender issuegu baryahaaba hawshiisu wayna hor taallay waxaan rajaynayaa in somalilandna xukuumadda golayaasha magaranaysaay golaha baarlamaanka iyo kaguurtiduba ay tixgeliyaan gender issuega inta badan laga hadlo somaliland ee dumarku cawdaan annagu xalaal ahaan tartankayagii tartankayan qabanay runtii final magaranaysa assignmentkii labadaa qof baa maarkiisku ugu wanaagsanaa helay markaa nasiib wanaag ilaahay wuxuu qadaray inay wiil iyo gabadh noqdaan xaggii genderka markaa ilaahay baaba nagu guulayay waan ka fakanay haddii laba ina noqon lahayn ama laba hablood waxaa laga yaaba in waxoogay magaranaysaa comments meeshaa ka iman lahayn taana ilaahay baa sidaa inagu wada asturay waxaa kaloon idiin sheegayaa waxaan halkan ku haynaa haddii ba isleeyahay shahaadado haddii ba isleeyahay iyo recommendation magaranaysaa letters afartiinan mujaahida iyana tartanka ku soo hadhay waxaan ballan qaadana marketku wuu furan yahay som cable iyo sona shaqaale waa u baahan yahay waana u baahnaan doonaa waxaanu ilaahay ballankii galaynaa in aanu si xalaala idina priority-ga idiin siino wixii shaqo soo baxa vacancies soo baxay ugu horeeya in tixgelinta koobaad mudnaanta koobaad idinka la idin siiyo oo aliiska xagga hore kaga qorantiin iyaan ballan qaadana taasina waa ballan qaad waxaan in yaroo tacliiqa ku dari lahaa waxaa jira muddadii aynu hawsha soo wada wadnay inaan 30kii qof ka mida ayaa waxoogay run ahaantii negative comments bixiyey waxaan leeyahay inankaasi uu degdegay dee wadar iyo waaxid soomaalida waxaa tiraa wadar iyo waaxid midkee waalan 30 baa ahaydeen wuxuu keligii arkay isagaa 20kii kale arki waayeen waa su-aal iyo in la isweydiin karo isagana waxaan leenahay noocyada hawlaha noocaas oo kale waa viruska allaa ka daweeyo generationada soo kacayana aynu ka ilaalinay inuu sareeyo isagana allah u gargaaro annagu saan idiin sheegay daacad baanu ka hayn tartankiinii wax nepotism ama magaranaysaay qaraabakiili naguma jirin sidaa noogu wada timaadeen unbaad carruurtayadu ahaydeen imikana carruurtayadii baa tihiin labadaa qofee aynu magaranaysaa maanta guulaystay waa la wada guulaysateen haddii la tartamana waxaa ogaataan in tartanka dee kolley yarahe dee imtixaanada intaasoo arday ahaydeen wax soo dhiganayseen kolley kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad cidunbaa geli jirtay taasunbaad iyana arki doontaan waanan idiin ducaynaynaa imikana waxaan doonayaa inaan horta marka hore shahaadadihiinii waxay mutaysateen aan idin guddoonsiiyo martida kelmaddeedii waan dambaysiinaya waxaan u yeedhayaa asma xasan habane asma hadar waad mahadsan tahay thank you very much congratulations
كندا برخد يوسف علم حياة محمد فرح سعيد محمد أحمد labadii tartamay wanka iyo tuwa kala galay baan iyana u yeerayaa cabdiqani maxamed aadan amaal xuseen cusmaan hawshaasi waxaan laba kelmadood oo magaranaysaa ee munaasabadaas siinaya VIP gastiska maanta martidan inagula jira cali falyatafadal الرحمن الرحيم وبه نستعين على سراد الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد مركه هوري السلام عليكم مركه لبعض فرحات بيت هاي inaan ka qayb galo barnaamijkan ay shirkadda Sam Cable samaysay soo oo kelmad qaali ah aan sida way helay kelmadda soo gasho oo kelmad yaab leh ka slogan bay ii tahay aniga soo qofkii keenay qof fikirayo aan ku hambalyeynaya marka labaad waxaan hambalyeynayaa barnaamijka laftiisa apprentices adduunyada kale meelo badan bay ka dhacdaa maraykan baa ka mid ah waxaa la tartansiiyaa dad amba arday amba tijaar amba maskax idea waxa la yidhaha oo haddaad fakir hayso qurux badan dadka qaar baa maal geliya sida ninka la yidhaha Donald Trump oo kale uu ordayay madaxweynenimada maraykan oo dad badan ka qayliyeen haddana ninkii business furanaya idea keena uu maal geliya waxaan ku hambalyeynayaa sharikadda Sam Cable oo keentay fakir fiican iyo raggii abaabulay maxamed injineer suldaan qayb weyn ka ah fakirkan waxaan ku hambalyeynayaa fakirkan ay keeneen innaga lafteena dalahaan iyo dadahaanna waa shay qurux badan waxaan u malaynayaa Soomaaliland waxay iibiso waxa ugu fiican ay haysataa waa human resource waa dad yar yar oo soo kacaya oo wax bartay mar saddexaad waxaan idinku hambalyeynayaa qolada guuleysatay iyo qolada halkan soo gaadhay iyo 30kii bilaabayba wax weyn baa dalka u qabateen waxaan kaga baxayaa كلمة ويلا تمعد الله يرحمه وحدا درتا أبحيو وحاتهين حدد كي دارا للك iyo waalidka adu ka dhursugay dadkii dalkuba iyo ciidii calanku iyo waalidkiin bay idinka dhursugaya hanbaliyo assalaamu alaykum الله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين إلهي بقى محله هل كان اسمه كاني وجوهرين كمبنيجا Sam Cable iyo soo gasho oo kaalin muhiim ah ka qaatay inaad maskaxdiina iyo fikirkiina aad tijaabisaan iyo aqoontiina oo mahad celinaynaa dhalinyaro ahaan intii soo baxday iyo inta maanta tartanka ku guuleysatay iyo intii ka hadhayba maadaama qofku fikirkiisa iyo aqligiisa iyo wuxuu fahansan yahay tijaabiyana waa mar walba doonayno hore u socdo marka in fikir la idin siiyo la idin tijaabiyo inaad garaadkiina aad wax ku keeni kartaan fursad wanaagsan oo la idin abuuray bay taas tahay وين نيجي نقول مع العلينو محمد ياسمين يتيم كلا مختار يتيم كلا يشوفه كمبنيجا
guushan aad hesheen anu qayb baan ka ahaa dadkii aad u timaadeen dadkii lala hadlay dadkii wax laga dhaadhicinayay waxaan gaadhay heer xataa markii layla hadlayay ee laygala hadlayay carruurta yareen dhoolayaasha ah oo dareenkayguba isbedelo yani sidii aad wax uga dhaadhicinayseen aad wax u fahansiinayseen yani sawirka dhabtee halkaa yaallo qofka aan idinla joogin sidii aad u tusayseen waxay igu abuurtay laftayda inaan waajib naga maqnaa saxaafad ahaan oo naga dhinnaa amaba aanu ilownay inaanu aadna xusuusisaan oonu dadkii indhoolayaasha ahaa ee nagala hadlay maalintaasi aanu dib u eegno inaanu bulshada dadka dhibaataysan aanu wax ku celino guushaana idinkaas iska lahaa ilaahay ka sakowna haddii aanu halkaa wax ka qabanno mahaddeeda idinkaas iskale marka dareenkaa wanaagsan aad nala wadaagteen wuxuu muujinayaa guusha aad hesheen inay tahay mid xalaala maadaama marka horena ahaa dadkii aada la soo kulanteen tiimamka kale baxayna ay dadka kale un la kulmeen markaa saddexdii qof ee aan wada kulaynayba alxamdulilah halkan bay joogaan oo tiimkaasi maanta guulaystay inanka wanka galay iyo inanta kaalinta labaad gashay iyo barkhadoo isaga laftiisu shahaado helay kana mid noqon doona dee dadka shaqo sugayaasha oo fursad wanaagsan ay tahay iyo tiimka kale kala qayb galay waa un mahad celinaya adduunkana in la tartamaa waa shay xalaala ceebna maaha dadkuna way isku eedayaanoo waxaa la yidhaahdaa kambaniguba dee ama xigta ama cid gaara ayuu inta badan shaqooyinka siiya inaad la yidhaahdo waar kaaleya tartama oo xalaal ku tartama oo faham ku tartama oo aqoon ku tartama oo inaad wax iibin kartaan iyo inaad wax la soo bixi kartaan ku tartamana taa lafteeda qofkii ka maqnaaday unbaa iyadana fursadiisa gabay laakiin ciddii heshayba waa taa maanta halkaa taagan taasina waa falilaahi alxamdu anuuna waa idinku ducaynaynaa waa idinku garab taaganahay saxaafad ahaan inaan idin gudbino idin dhiiri gelino kambanigii fursaddan idin abuurayna inaanu la shaqayno oo mar sidaan marka horeba ula shaqaynay tv-ga uga baxayay imikana uga bixi doono insha allah fursado intan ka badan ay idinka idin siiyeenna annaguna sidii aanu u xambaari lahayn fursaddaa laydin siiyey oonu ummadda ugu sii bandhigi lahayn ayaan anaguna ka shaqayn doonaa tiim dhallinyaraa jooga oo aada u wanaagsan kambanigan oo fursad fiican ah oo muraayadii dalka ah ood arkaysaan agekooda iyo siday shaqada u wadaan iyo fursadaha ay bixinayaan taa lafteedu waa idinkoo kale waa kuwa inaga maqan oo kale in lagu daydaano taasina way fiican tahay aada iyo aad baan ugu mahad celinaynaa hadalka dheerayn maayo home cable t v ahaana insha allah shaqooyin badan oo wanaagsan baan la sii wadi doonaa kambaniga shaqada nimka la qabano mid kasii wanaagsan aad baad mahadsantahay waa tahay daawadayaal sidaa wada daawanayseen baa barnaamijka somaliland apprentice qaybtiisii ugu dambeysay ayaynu ku guda jirnaa sidaad arkaysaana guulaystaha barnaamijka iyo guulaystaha ku-xiga ayaa hadda kusoo guulaystay barnaamijka soo baxay waxaa garabkayga ku sugan cabdiqani oo hadda si dhaba u saxiixi doona shaqada amaba kontraaga shaqada uu qaban doono shirkadda so company ee uu ku guulaystay barnaamijkiisa dabadayaal sidaad arkaysaanba waraaqahaasi waa waraaqaha waxaa la fahansiinayaa shaqooyinka kala duwan iyo shuruudaha shaqadu ay uga baahan tahay cabdiqani shaqada uu ku guulaystay shirkadda so company isagoo ah wiilka kaalinta koobaad ka galay barnaamijkaasi somaliland apprentice cabdiqani hadda waxa uu saxiixi doonaa uu ogolaaday dhammaan shuruudaha ku qoran warqadda kontraaga shaqada ah taasi oo hadda uu saxiixayo uu kuna qorayo dheedka uu shaqada bilaabayo telefoonkiisa iyo macluumaadka gaarka ah ee looga baahan yahay sidaasina waxa uu kaga mid noqday shaqaalaha shirkadda so company mas-uulkuna waxa uu saasi ku saxay waraaqaha cabdiqani haddana daawadayaal sidaad arkaysaanba hadda cabdiqani wuxuu ka mid noqday shaqaalaha shirkadda so company isagoo barnaamijka somaliland apprentice-na kaalinta koobaad ku guulaystay aad baad mahadsan tahay cabdiqani sidaasi daawadayaal waa tahay daawadayaal cabdiqani waxa uu sidaasi ku saxeexay barnaamijka somaliland apprentice uu kaalinta koobaad ku galay haddana waxaan u yeedhi doonaa amaal oo kaalinta labaad iyadu ku guulaysatay barnaamijka somaliland apprentice oo iyaduna saxiixi doonta waraaqaha heshiiska barnaamijkani ay kaga mid noqonayso shaqaalaha shirkadda so company sida wada arkaysaan maxamed waxa uu sharaxayaa shuruudaha kala duwan ee ku qoran warqadani oo ah macluumaad dhammaystiran oo shirkadda so company amaba lagaga saxeexayo shaqadani iyo waxa ay qaban doonaan
iyo waxa ay noqonayso shuruudaha looga baahan yahay oo kala duwan amaba shirkadda siyaasadda ama boolisiga ay shirkaddu ay shaqaalaheeda u dejisay ee xafiiskeeda human resourceska ayaa ku wada dhammaystiran iyadoo laga buuxin doono hadda macluumaadka kala duwan ee looga baahan yahay amaal way ogolaatay dhammaan shuruudaha ku qoran warqadaasi ee looga baahan yahay ee shaqadaasi sidaasina waxay ku qoraysaa ciwaanadeeda kala duwan goobaha laga helo lambaradeeda iyadoo ugu dambaystana u harsan tahay saxiixeeda oo ah ka ugu dambeeya kaga mid noqonayso shaqaalaha shirkadda soo company amaalna sidaasi waxay kaga mid noqotay mas-uul maxamedna sidaasi waxa uu ku seexay shaqada amaal waxay ka mid tahay shaqaalaha shirkadda soo company oo maanta sidaasi ay kaga qayb qaadatay waa tahay daawadayaal intaasi waxaynu ku soo gabagabayn doonaa barnaamijka Somaliland Apprentice oo isagu barnaamijkani muddo uu socday barnaamijka Somaliland Apprentice intaynu ku kulmi doono qaybtiisii ugu dambeysay oo hadda aynu ka soo baxnay iyadoo tartamayaasha barnaamijka Somaliland Apprentice ay ku guuleysteen Cabdiqani oo kaalinta koobaad ee barnaamijkani galay halka kaalinta labaadna ay amaal ku guuleysatay iyadoo shirkaddu marka hore ugu talagashay barnaamijkan inuu hal qof uu ku guuleysto oo shaqadaasi dhabtaha oo helo haddana waxay garateen mas'uuliyiinta iyo xeerbeegtida barnaamijku markay arkeen awoodda iyo xirfadda iyo kartida kala duwan ee lixda qof ee isugu soo hadhay ay leeyihiin in la kala saari kari waayey guud ahaana markaasi laba qof laga qaato labada qof waan u hambaliyeynaynaa ee iyagu ka mid noqday shaqaalaha sida wada arkaysayna waxa ay saxeexeen heshiiska ay la gelayaan shirkadda soo company ay kaga mid noqonayaan shaqaalahooga iyagoo labaduba ay saxeexeen sida kale daawadayaal u wada jeeteena abaalmarino kala duwan oo halkaasi lagu guddoonsiiyey sidoo kalena ay heleen tartamayaashaasi kala duwani abaalmarino iyo welibana ballanqaadi ay shirkadda soo company u samaysay intaynu ku kulmi doono barnaamijka xiga anigoo ah maxamed fuuse maxamed muuqaalada tirada badan ee idin soo gaadhiyay inta uu socday barnaamijka Somaliland Apprentice waa kooxda duubista Real Video maxamed xaashi iyo cadnaan anigoo ah maxamed fuuse maxamed guud ahaan dhammaantiin waxaynu ku dhaafaynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh